soo aad baan ugu faraxsanahay inaan qaato training sidan oo kale aad iyo aad u aqoon buuxda oo maxaan ku dhahay aad uga faa'iideysid sidoo kalena naftaada wax ku soo kordhinaya kobcinta iyo kor u qaadida ardayda jaamacadaha Amoud Golis Elo iyo Bandar ee magaalada Boorama ayaa maalintii saddexaad ka faa'iideystay tababar ku saabsan diyaarinta iyo cilmi baarista casriga tababarkan waxa soo qaban qaabisay jaamacadda Golis University Boorama waxaana bixinaya aqoon-yahan cilmi baaris sare Cabdulqaadir Siciid Jaamac ardaydii ka faa'iideysatay ayaa ka hadlay faa'iidada barnaamijkan iyo fahamka tababarka ay qaateen magacaygu Cabdullaahi Ismaaciil Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda halka ku qaadanaysa training-ka run ahaantii waxaan bogaadinayaa barnaamijyada caynkan oo kala ah ee training-nada ee jaamacadda Golis ay noo qabato faa'iidooyinkooda mid aan la soo koobi karahayn qofku mar kasta oo uu qaato training waxa uu ka dhigan yahay in uu qayb weyn oo ka mid ah tacliintaas in si duuduuba loo siiyey marka training-kan haddaan u soo noqdo ustaad Cabdiqaadir meel dheer buu nooga yimid habeenkii saddexaad buu markii noo socdaa gabagabana ku dhow yahay waxyaalaha aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah in aanu baranay xirfadan qayb ka mid ah oo ah sida waxa weeye buugaaga loo diyaarsado marka jaamacadda dhamaysid sidoo kale in aad darsi karaysid problemada ama wax mashaakilka ka jira deegaanka aad ku nooshahay adiga oo qaab cilmi ahaan ah u daraasaynaya marka runaantii barnaamijkan waa mid aynu soo koobi karin faa'iidooyinkiisu aadna waan ugu mahadcelinayaa jaamacadda iyo ustaadka iyo ka qaybqaatayaashii halkan yimid marka insha Allah tacaala intaas ku soo gudbiyay bismillaah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn waxaan aad u salaamayaa amba bogaadinayaa ustaadkeena ustaad Cabdiqaadir oo ah teacher horta aad iyo aad u fiican tigrata training horta marka la yiraahdo qof walba maskaxdiisa ku soo dhacaysa training fara badan laakiin training-nadii aan ku qaadanay jaamacadda Golis waa training-naas oran karo training maxaa u faa'iidaha badnaa yacni wuxuu laba point uu kaga duwan yahay training-nadii hore aan soo qaadanay pointiga koowaad wuxuu yahay inuu fursad siinay ardayda imka jaamacadda ku dhex jirta si ay hadhow toole markay qalin jebinayaan ay si fudud ugu dhamaystirmaan ba u qoraan buugooga ay research ay ku sameynayaan iyo inaad adiga naf ahaantaada research aad ku sameyn karto naftaada oo deegaankaaga iyo meel walba aad jeclaatid research si degan aad ugu sameyn karto soo aad baan ugu faraxsanahay inaan qaato training sidan oo kale aad iyo aad u aqoon buuxda oo maxaan ku dhahay aad uga faa'iideysid sidoo kalena naftaada wax ku soo kordhinaya ugu dambeyntii aqoon-yahan cilmi baari Cabdulqaadir Siciid Jaamac ayaa sharaxaya waxyaalaha uu ku saabsanaa isagoona ballan qaaday in uu gaarsiin doono dhammaan jaamacadaha kale ee mandaqada aan ardayda ka kala socota jaamacadaha Boorame jaamacadda Golis Amoud Elo iyo jaamacadda Badar aad iyo aad baa u mahadsantihiin barnaamijkan maanta caawa wuxuu ku saabsanaa inoo soo gabagabaysmaya qorista cilmi baarista casriga ah barnaamijkan anigu gobolada deegaanada Soomaalida oo dhan baan ka bixiyaa xaqiiqatan markii labaad oo Boorama aan ka bixiyo weeye barnaamijkan waxaan rajaynayaa in uu gaaro dhammaan gobolada kale oo harsan sidoo kale barnaamijkanu waxaan uga muhiimadda u weyn waxa weeye in aynu dhalinyarada Soomaaliyeed aynu dhiirigelinno inaynu awoodooda banaanka loo soo saaro researchkuna waxaaynu xoog u saaraynaa waxa weeye in problemiska deegaamadeenna ka jira la soo saaro si hadhowto ardaydu waa aqoon-yahaniintii dalka ay banaanka u soo dhigaan problemiska halkana loo gaaro dawladuhu ay xalka ay u gaaraan